بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn ciddii soo qabanqaabisay iyo dadweynahan xaadirayba waa u mahad celinayaa kadibna kelmaddeenu waxay ku saabsanaan doontaa in sha allahu tacaala bayna atasbiixi waalrida xidhiidhka ka dhexeeya in la tasbiixsado tasbiixu subxaana allah waa ilaahayoo waxaan u cuntamin ama u qalmin laga dheereeyo waa tansiih labada erayo subxaana allah alxamdu lilah alxamdu lilaahina waa ilaahayoo wuxuu ku sifoobe kamaal iyo wanaaga lagu ammaano subxaana allahina waa ilaahay waxaan u cuntamin ama u qalmin oo laga nasaha mase laga dheereeyo dunida aynu ku nool lahay ilaahay wuxuu inoo tilmaamay in laynoo keenay in layna itixaamo kullu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun dadka qof waliba geerida waa dhadhaminayaa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala inta geerida ka horeysana nabluukum bishari waalkhayr sharka iyo khayrka labadaba waynu ku imtixaamaynaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaad nimco heshana waa imtixaan hadday dhibi ku soo gaadhana waa imtixaan labaduba waa imtixaan mid waa imtixaan waxaa la eegayaa inaad kibirtoo qooqdid ama inaad tawaaducdid oo ilaahay u mahadnaqdid oo shukri la timaadid waa markaad wax hesho nabad iyo caafimaad ka dharagtid xoole heshid cagsigeeduna oo imtixaana waxaa la eegayaa inaad sabirtid adkaysatid ilaahay subxaana wa tacaala qada'uhu wa qadaruh inaad raalli ka noqon kartid qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inooga warramayaa ambiyo tiro badan oo labadaba lagu itixaamay iyo dad saalixiina dad xoolo iyo madaxnimo lagu itixaamay sida nebi sulaymaan nebi daawuud dulqarnayn taaluut waa madax muslima oo soo martay caalamulislaami ama dunidii muslimkaee soo jirtay dunidana ka teliyey meelo badan oo ka mid ah oo la itixaamay nimcana lagu itixaamay kuwo kale oo dhib lagu itixaamayna ilaahay uu ka warramaya qur-aanka qaar la dilay fariiqan taqtuluun qaar la xabsiyey nebi yuusuf qaar xanuun lagu itixaamay nebi ayuub basharka waxa dhib soo martoo dhan iyo waxaa barwaaqo maraba ilaahay ambiyu tusaale uga dhigay haddaba dhibaatooyinka wakhtigay jiraan dadku in badan wuu warwaraa cidhiidhina wuu dareemaa maanta dunidaynu ku nool lahay dacal walba muslim baa la dilayaa waxa raadiyow iyo t v ka warramaya waa muslim qaxaya iyo muslim la dilayo cidda dareen islaamiya ku jirta markaa ama ka damqanaya dadka muslimiinta iyo dhibta gaadhaysa waa warwaraya waxaynu ka warramaynaa markaasi warwarkaa dawadiisa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu ka soo baxay magaalada u dhashay ee maka ah dabeetana dadkiisii baa ka hor yimi dagaal kale hor yimi dhibaatayn kale kala hor yimi aflagaadayn iyo ceebayn kala hor yimi isagoo rasuul ilaahay soo diraya oo leh ilaahay keligii caabuda ayay kala hor yimaadeen inay idhahdaan beenaalaad tahay saaxir baad tahay kadaab baad tahay waxaa qur-aanku uu ka warramayo oo dhan qofka bini aadamka ee dad sama u sheegaya wanaag u wada ee haddana dadkii wanaagga uu sheegaya ay ku leeyihiin beenaalaad tahay ama kadaab baad tahay ama saaxir baad tahay ama waad waalantay yaa ayuha aladii waxay tilmaamayeen warkan kitaabka lagu soo dejiyeyow innaka la majnuunun bay leeyihin waabaad waalan tahay waxbaa kuu dhiman cidhiidhi buu nebigu ka dareemay markaasi calayhi salaatu wassalaam saxaabadiisaa hortiisa lagu toorjargaraynayo o lagu leynayo aan waxba u tari karaynin waxaa hortiisa ku dhimanayay magaaladu joogay qoysas dhan oo la toorjargareeyo sida reer aalu yaasir oo kale wiil baa ka badbaaday
camaar ibnu yaasir baa ka badbaaday odaygii islaantii wixiiba torjarkaa lagu laayay qaar kale waa la cadaabayay sidii muaadinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bilaal alxabashi oo kale dhagxaninta la saaro allah allah u lahaa waxaasoo dhib oo soo maraysay haddana waxaa ka sii dhib badan marka dadka qofka kuugu xiga uu noqdo ka kuugu adag nebi maxamed adeerkii ruma markuu quraysh ka qustu dadka kale is yidhi la hadal carabtaas xajka timaado ama maka timaado ama meelaha timaado la hadal adeerkiibaa daba socdoo le kan ana adeeru waa beenaale waxba ka dhegaysanina waa nin waalan waa abulahab waa adeerkii ay aabihii walaalayiin oo le waa wiilkayagii waana idinka og maxaad odhan lahayd haddii ninuu kuu yimaado adeerkiina daba socdo oo uu adeerkii ku leeyahay wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu u soo dejiyey qur'aan ka warramaya laabtiisu siday u caafimaadi lahayd diiqan iyo cidhiidhiga tan iyo dhibtan qofka muslimka ah haysta si uga bixi kari lahaa waa dawaaun yustashfa waa dawo lagu caafimaado ama tiryaaq sunta lagaga bogsado ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati alxijr walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun walaqad naclam waa ognahay baa ilaahay leeyahy annaka yadiiqu sadruk laabtu inay ku cidhiidhtoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed adoo ilaahay rasuulkiisiiya basharkaba ilaahay kaa doortay afdal ah wixii bini aadamba aadam dhalay ugu fadli badan in haddana lagu caayo oo lagu tilmaamo waad waalan tahay ama waxba kuu dhiman ama waa saaxir ama waa kadaab ilaahay wuxuu leeyahy waa ognahay in laabta ku cidhiidhiyoomayso oo waxay ku hadlayaan laabtaada cidhiidhi aad ka dareemi doonto ee maxaa dawo bixamdi rabbik wakun min asaajidiin baa ilahay yidhi ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehaya amase ku maraya mahadnaqiisa iyo xamdigiisa kalimataan subxaana allah wa bixamdihi adigoo leh samee baa ilaahay yidhi oo wakun min asaajidiin kuwa sujuudayana ka mid noqo labadan shay ee ilaahay uu tilmaamaya waxa weeyaan waa labada laabta caafimaadiya wax kasta oo cidhiidhiyo bini aadamka soo mara uu kaga bogsado haddii uu maxay dhadhan ay u samaynayaan hadduu yahay dadka salaada dhadhamiya tasbiixda dhadhaminaya qur-aan badan baa ilaahay soo dejiyo nebiga cidhiidhiga haysta uu ku tilmaamayo qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun falacalaka taarikun bacda ma yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaءa macahu malak falacalaka baakhicun nafsaka calى aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa lacalaka baakhicun nafsaka an laa yakunuu mu'miniin kula hadihi alaayaat ilaahay waxa kaga warramaya wuxuu kaga warramaya cidhiidhiga nebiga haystay calayhi salaatu wasalaam cidhiidhiga nebiga haystay iyo ceebtan siduu u necbaa iyo muslimkan la dhibayo iyo waxa lagu hadlayo iyo waxa dood laga dhiganayo muu lacag haysto iyo maa malaa'iga soo raacda iyo dadkaa rumayn waayey ilaahay wuxuu uga dhigay markaas amar lagu siiyey tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle oo sujuud kaas baa tiryaaq u ah ama caafimaad u ah laabtaada iyo waxay ku hadlayaan oo dhabkaasaad kaga bogsanaysaa walidalik baa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam marka arrini qabsato idaa xasabahu amrun badara ila الsalaa marka dhibi ku dhacdo waxa uu degdegi jiray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xagga salaada waxaana ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya mas'aladaasiyo aada loogu boorinayo qur-aanka dhul badan kaga soo aroortay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbik qabla طuluuci الshamsi waqabla اlguruub wamin alleyli fasabbixu waadbaara sujuud fii suurati qaaf ilahay wuxuu leeyahy sabir waxay ku hadlayaan oo ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehaya ilaahay mahadnaqiisa waagu intaanu beryin ama cadceedi soo bixin iyo inta aanay cadceedi dhicin iyo inta gabalku dhace habeena iyo wa adbaari sujuud salaadaha dabadood tasbiixda badi baa ilaahay leeyahy
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة غافر. وفي طور واصبر لحكم ربك